qabtaan hareeraha oo u socod
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ضمان مدحدا قرنka ee kala duwan
فورين يا قرية شرعي يا محكمة قرصور يا مدح رقمات يا قناع سطو يا قار كمان وحوس كريم راني يا دمر عرورية عرور هذه بعد السلامية انتينا كسو قيب قشة حفلة وانا سودو ويني حفلة ما انت وحن سيجارة وسيدو ويني ولا لدينا إمارات كعربتا مدحدة كتشوكتا سفير كوه وينيو يحب نكره أو كيم الدولة ده وصاك سوق على سومالي لاند فريان أو ضدك سومالي لاند مالجري تقبل جريه واختيارات أضل آد بينه ما هذا قاعد وإنه سووا لنا الساعة الحلو وسووا لنا دولة الإمارات كعربتها مدح دولة لما أنتم سومالي لاند وحيس كلام تاجي وقت أضل سياسة أهان أقوس أهان نقال أهان سومالي لاند وقت أي كشفت وقت أضل أي كلام تاجي سومالي وضع أمال كبيرة نقول الله حكوا نقول السعيد يروح الناطري تاريخ هو هيننا عربت إمارة عربت الرواء كل ما تقدر تقول قال عنه سياسة سومالي لاند arrimaha dibaddu waxay ku salaysan tahay nin waliba intuu itiro ayuu maantara ammaan tixgeliya ha xoog weynaado ha lacag badnaado magaciisu meel dare ha gaaro ama ha taag daraado ama ha dhaqaalo yaraado ama ha dal yaraadee siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa weeye nin waliba weelku ugu shubmaa ugu shubaya ninka qarannimada Soomaaliland ixtiraama ee qadariya ee erenoo yiraahda ama taakula maalin wax naga taraa abaalkaan u haynaa intaan leeyahay guriga ninka arki waaya qarannimada Soomaaliland ama dawladda arki weyda xoog kasta ha lahaado dhaqaale kala hasta haado anigu kuma arkay hadaan arkay marleer qaran jiga oo isku kalsoon ilaahay dalka ku abuuray ilaahay siiyay nimcada wada tashiga iyo tala wadaagga iyo dalkooda daafaca ayaanu nahay kuma habrano waa ka xoog weynahay iyo kuma habrano dhaqaalaha aan wax ka heli doona kuma habrano qarannimadooda kii oo buran baanu gacan saaran aanu iska qaadayna taa waxa doonayaa inay cid kasta aad u dhageysato marka taa ka soo laabto maanta mashruuc aynu joognaa taariikhda aan dheerayn ee dhammaanteen aynu wada xusuusanahay dad halkan fadhiya oo kursiga 7 sano ka hor ama 6 sano ka hor markii hawsha la bilaabayay waxay Soomaalidu tiraahdaa hal la toosan baan inta u leh dadka siyaasadda hogaamiyaha dalka ee madaxa dalka ee siyaasadda ka mid ah ee magaca leh ee la dhageystaa waxay gaarsiiyeen oo loo joogay oo meediyaha mariyeen markii laga gaaray dalka la gadayaa waa la iibsaday dii oleyna yaani heerka sal gaarsiiyay guddoomiyihii hore ee xisbiga wadada wuxuu soo gaaray in raahdo maxkamada la saaray madaxweynaha markaa Silaayo iyo guddoomiyihii xisbiga aniga ahaa waa taariikh cad oo rekoorkeeda lahayo waxa taariikhdu ay yaabtahay markaad adigu ka marxaadfurto waxaad samaysay shirkii waday ee ugu dambeeyey guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani isagaa maxkamadda saaray waayo hal saaray madaxweynihii markaa Silaayo iyo guddoomiyihii xisbiga markaa oo aniga ahaa wuxuu xaqiiqsaday in raayigii uu ku socday iyo halka aragtidii warkay ay qaldanayd oo ciidla ahayd wuxuu u soo noqday siyaasadii kulmiye ee mustaqbalka fog dalka lagu dhisay qoraalka ay taalay waana ta uu ku dhiibay ugu wareejiyay ragga martida uu ahaa kulmiye u tagay talada xisbiga markuu aqoonsaday inuu ka tirmayo inay wataan waa aragii iyo fishankii kulmiye ku socday markuu arkay isaga xukumay oo ku wareejiyay ragga martida uu ahaa kulmiye u tagay waana waxyaalaha garowshiyaha
قفك السياسي المركز حكمه ومرخاتين فرابي هبوط وحنا رأينا سوري حزب القرك معارض والوجه هاي هذه ومراد أذكار كيسو وحنا ورثة صومالنا ودارت صوماليا السياسي قد ما يسوي سمر خاطف رصيد أو عبد الرحمن سنية وكره وكور يجيو عدو فرايو إلى الحكرميس هذا تاسع أصلا تأخذ ضعفه صوماليا فيش كير محله مستقبل كمحين دوننا حزب الحرية مبادئ ديسو ومجورات مبادئ ديسو ومجورات حزب الحرية حكوكا إن دلك midnimadiisa iyo cadaaladiisa iyo isku hayntiisa iyo wada heshiisu ay koob ka ahaato dhammaan Soomaaliland taawul u codays ummadda Soomaaliland waxa laga doonayaa dastuurkii ay u codaysay oo oranaya qodobadiisa ay koob ka tahay dalka Ilaahay baa siiyay shacbiga aan leh awoodda maamulka shacbigu wuxuu u igmaday dawladdu oo dhisto ayuu u igmaday in dalka u maamusho dawladana waxa la faray oo xeer dastuur faraya nin kasta oo la doortay lagu dhaariyaa in uu daacad u shaqeeyo sinaan iyo midnimo dalka loo dhaariyo heer yahayba hadduu yahay dowladda hoose oo la doortay waa loo dhaariyaa oo gobolkiisa lagu dhaariyaa hadduu yahay baarlamaan iyo hadduu yahay madaxtooyada waxa loogu dhaariyaa inuu qaranka mucaarad iyo muxaafid midnimo u shaqeeyo muwaadiniinta Soomaaliland ay dalka u sinaadaan halkay doonaan ay karaan halkay doonaan ka shaqeyn karaan sidaa darteed dadweynaha Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa inay daarta iyo ahdiya furiyaan oo dalka ay u simannahay magaalo kasta oo khayraad loo sameeyo loo shaqeeyo oo Soomaaliland ka dhaxayso oo aan cidina sheegan karin oo aan meel kasta oo macdan laga helo ay Soomaaliland tahay oo aan la kala sheegan karin ee loo wada shaqeyn karo واحد المقلي والدستور كذي والكل عرنا فكرة أنا إنه كوكر لا يقولنا أدون كوح نوع سافة وني ولا ينور سهولة وني ولا يسوي نص ورايا مركب أرجع منه مركب الدستور كنا ستة وعرة بعرف إنه قال مركب كلهم يمه مركب قلادات كنا سنير قبته صحنه الدل كنا جودها والله تاسنا وافرين قول صاحب iyo odayaashiisa iyo dhalinyaradiisa waxaa ku ammaanayaa inay hormood ka noqdaan deganaanshaha iyo in barbarada wada yeesho iyo inay Soomaaliland u hayto dekadaana Soomaaliland oo dhan baale maxamed xaaji waraaciga rasuul sallallahu alayhi wasallam halkaas u istaagay maalintii la bilaabo shaqadeeda doorkii horreysay u yimid intii joogtay ashada salaashaki wuxuu weydiiyay barbarayaala reer barbaro maxaa ku jawaabteen Soomaaliland baale maanta waxa la Afrika oo shaqeynaysa way dhaafaysaa Soomaaliland dalka geeska Afrika ee aan lahayn badda oo dhan bay u adeeynaa halkaan af kasta waa laga hadlaa magaalada cid waliba waa timaada oo cid walba waa yeegtaa halka imaka aan maraysa oo soo dhaweyn mudan oo dadaashaan lebilaal iyo boqolaal ka barrawliga sidaashaa barbar waa soo maxaa laga yaqaanaa way qatanaataa wax iyadoo cabasho ma sheegto dhibteedana ma sheegato inta ay dhashay inta ay si ayayda u tahay inta ay sodohda u tahay inta ay dumaashiga u tahay dhammaan dadka oo dhan ba haysa barbari waa hooyadii Soomaaliland taana hal ogaado kuwa kala kaga dayda gobolada kala kaga dayda mashaariicda la hirgelinayo dad badan waxay nagu canaantaan dawladda waxaatihiin amuume ama agnaan ma sheegataan waxa qabataan ma faantaan diinteenna iyo dhaqankeena haddaad hawsha qabanayso ma istustus iyo ammaan ayaa loo qabtaa quraanka xaaraantinimeeyey qofka waayeelkii inta badan dadka dhisay ama caalamkaba wadada la aqoon waa majhuul dadka wuxuu qabtaa ma faano marka waxaan doonaynaa oo hor wadaa in la iska bedelo caadada faanka iyo waxaan lahayn lagu amaano waxaynu qabanno ee la taaban karta hor Ilaahay iyo dadkeena inuu qabana faan ma qaban waana waajib lagu lahaa
mana gallo ballanqaadin beera wixii la ballan qaaday kolba toorsee la soconaya garoonkan maanta waa ogeydeen wixii ka dhacay maanta waxaynu ka joognaa garoon caalami ah oo gobollada adduunka ugu weyna oo ay walaalada imaaraadku inoo howlgeliyeen innagana waxaa laynaga rabaa inaynu u diyaargarowno sidii ummadda caalamka oo dhan halkan usoo mar lahayd geeska africa badankeedu mar hadduu garoonka ugu weynaa yahay mar hadday dekadii ugu weynaa tahay waxaynu u baahan nahay inaynu caalamka intaysan kable isagana aynu soo jiidano waxaan mahad gaara maanta u jeedinayaa ganacsatada waaweyn ee somalilan oo ah nimankii dalka halkan soo gaarsiiyey ama cashuur ha bixiyeen ama sadaqaha laga qaado ama warka ay kululaato ha loogu yeedhay oo aan u malaynayo intaan ka arkaayo maanta inuu jawaamac oobaan odayaasha u waaweyn u fadhiyo oo ah cashuur biyaha ugu weyn ee somalilan aad iyo aad baan ugu mahadnaqay dad badan waxaan sheegay dadka waxtira in la yidhaahdo waa bajuulo la yaqaan dad badan oo fikradda garoonkan inuu soo noqdo oo dekendari ay samaysato ka mid ah ayaa waxaa ka raacay eed badan iyo xagxagasho badan iyo waxaana geyin uu kow ka yahay ilaahay caafimaadkiisa raajiye saacad cali shire waxaa kaloo maanta inala jooga oo dhibaato badan ka gaadhay baashe caawil oo dhammaantii wada garanaysaa intii lagu caaday iyo wixii ka gaadhay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa raggiinii arrintaa marka hore bilaabay iyo wixii ka gaadhay qarankiina u shaqaysaan maantana magaceedii baa la arkaya waxaan ku soo koobayaa somalilan waxa ay qabatay oo ugu waaweynaa ay ka mid tahay mashaariicda imaaraadku ay geliyeen kharashka ugu badan iyo waddada ceer gaabo oo ay somaliland keligeed ay maalgelisay oo ugu mudan tahay doorashadii dhoweyto oo aanu weydeen inagoo layna ictiraafin inaynu dusha u reebeen maamulkeedii iyo dhaqaalaheedii iyo fulinteedii oo ay dhammaan shacabkuna isxil saareen oonay laba ku wada hadal oo xisbiyadu isxil saareen iyo siyaasiyiintu oonay labana isku xagxagan oo aynu nabadgeliyo iyo guul ku dhammaynay ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa kuwa soo socdana inaynu saasoo kale ka yeelno oo aynu hirgelinno inagoon isqabqabsanin inaga oo si wadanimo ah doorashooyinka u galla waxaan ku soo gabagabeynayaa mar labaad inaan u mahadnaqo iyo mar saddexaadba dowladda imaaraadka carabta madaxooda nagala joogaan somalilan aad iyo aad bay idinku mahadnaqaysaa madaxda maanta joogto iyo dhallinyaradii ka shaqaysa oo dhammaantood abaal weyn ku leh somalilandna abaalka waa celisaa waanu gudi doonaa insha allah mid inuu kaga danaa iyanu u baahannahay dowladda carabta waa dal aynu wax badan wadaagno waa islaam dhaqanka waynu wadaagna qabaliga ah waa dal yar oo dad yar oo naga dadan innaga haddana muddo 40 sannadood ah waxay noqdeen quwad caalamku dhalamkoo dhan tixgeliyo maaha lacag qura maaha dhaqaale waa ismaqalka talada iyo kala dambeynta iyo waxsuurada ay ismaqleen ayay ruush iyo maraykanba kaga adkaadeen sanka ku hayaan maanta oo waxa la qaadanaa la qaaday inaynu taa kaga daynayno u baahannahay oo taasoo kale yeelo waxaan aad u mahadnaqayaa dadkii soo qaban qaabay xafladan waxaan mahadnaqayaa intii hawsha ka qayb gashay garoonkan dhammaanteen waxaan ugu dardaarmayaa inaynu dalkeena ka shaqayno oo u diyaar garowno inaynaan cidna ku tiirsanaanin dowlad kasta iyo ummad kasta oo dhibaatooyin geeska jira ay ka mid yihiin gacan nabadeed baanu u fidinaynaa dad kastoo isaayad gudihiisa dhexaad baanu ka nahay ninkii abaal loo guyo waa mahadnaqana waan ugu yeynaa kiina arki waana dhahay uma arkaan dad ku kalsoon baanu nahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu